السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكسو نقد وناكسن او حيسا لي أصحابتنا مانتا محا إنو ودنا موضوع كجديسن مواضيع ذين هوري لكن هوس إيمانيا مركي أنكا هدلينو ماينست كينا الدنيا أراجينا هب فكردينا حسوستينا دمانتد وحا قابية أو قرحية أو سو سارة مسكحدينا آد بي مهم أتاي وحي مسؤول كتاي إني إلاليسو قراعة ودنهاغا إيا نفسشada sanbabadaada waana tan kuu ogolaanaysa inaad dhaqdhaqaaq samayso wax dareento kuna fikirto awoodda maskaxdaada waa mid aan la qiyaasi karin celcelis ahaan waxay isticmaashaa 20% tamarta jirkaaga maxaa yeelay maskaxdu waxay u baahan tahay energy aad u badan waxayna isticmaashaa qiyaastii 20% calorieska jirka maskaxdu waxay u baahan tahay nafaqo aad u badan iyo shidaal wanaagsan si ay u ahaato mid caafimaad qabta iyo mid wax soo saar fiican leh waxaad maskaxdaada gelisid oo shidaal ah ayaad adna miraheeda guranaysaa awoodda maskaxda waxaa la tilmaamaa cilmi baarisyo la sameeyay cuntooyinka aan cunayno waxay door weyn ku leeyihiin qaab dhismeedka iyo caafimaadka maskaxdeena cuntooyinka kobcinaya maskaxda waxay wanaajinayaan xasuusta diirad saaridda iyo guud ahaan qaab dhismeedka maskaxda waxaan fiidiyogan idinku soo gudbinaynaa 6 cuntooyin oo maskaxdaada awoodeeda sare u qaadaya dufanka kalluunka markay timaado oo laga hadlayo cuntooyinka maskaxda cuntada u horeysa oo la sheegayo waa kalluunka dhammaan noocyada kala duwan uu kalluunku leeyahay dhammaantood waxaa ka buuxa dufan la yiraahdo omega 3 qiyaastii 60% maskaxdaadu waa dufankaasna waa omega 3 fatty acids xisaabinta kala bar kalluunka dufankiisa wuxuu qani ku yahay oo laga helaa omega 3 na wuxuu qayb weyn ka ciyaaraa xoojinta xasuusta iyo hagaajinta moodka qofka yacni niyada qofka siday tahay omega 3 waxay sidoo kale maskaxda ka ilaalisaa hoos u dhaca garashada fawaa'ida kalluunka kuma soo koobi karna halkan wadankeenana qani ayuu ku yahay ee aan ka faa'iideysano lowsaska iyo iniinaha sida sisinta miraheeda flaxseedska mirihiisa chia seed mirihiisa waxaa ka buuxa oo ku jira antioxidants iyo macdano kala duwan sida zinc magnesium iyo iron ama bir oo ka qayb qaadanaysa inay hemoglobin-kaaga sare u qaado macdanta zinki waxay ka qayb qaadataa neerfayaasha haddii ay kugu yaraato macdanta zinkiga jirkaaga waxaa lala xiriiriyaa inay sababi karto xanuuno badan sida xanuunada neerfayaasha ku dhaca neurological conditions alzheimer oo ah qofka inay xasuustiisa dhan ka tagtaba depression iyo parkinson's iyadana macdanta magnesiumka waa daruuri wuxuuna aad muhiim ugu yahay waxbarashada iyo xasuusta iyadana sidoo kale markuu jirkaaga ku yaraado wuxuu sababaa xanuuno badan oo neurological diseases ah oo ay ka mid tahay migraine-ka ama xanuunkan Soomaalidu u taqaano goonjabka iyo suuxdinta 3 oranges ama liimaha noocyadooda kala duwan hal xabo oo liin macaan ah ama liin bambeelma ah oo dhexdhexaad ah aad cuntid maalintaada waxaad ka heli kartaa dhammaan vitamin C-ga aad u baahan tahay maalintaas oo dhan liintu waxaa ka buuxa antioxidant taas oo ka caawinaysa inay la dagaalanto wax walba oo dhibaato ah oo soo gaari lahaa unugyada maskaxda markuu dhiigu uu ka buuxo vitamin C waxaa lala xiriiriyaa hagaajinta hawlaha ku lug leh feejignaanta xasuusta iyo xawaaraha go'aan qaadashada cuntooyinka kale ee aad ka heli karto cadad badan oo vitamin C ah ayaa ah bambanooniyada noocyadooda kala duwan saytuunka yaanyada 4 ukunta waxaa ka buuxa nafaqooyin aad u badan oo lala xiriiriyo caafimaadka maskaxda oo ay ka mid yihiin vitamin B6 B12 iyo folate 5 dhammaan noocyada kala duwan ee miraha dhulka ka soo go'a sida digiraha sareenka haruurka qamadiga iyo wixii la mid ah waxaa ka buuxa fiber oo aan isla wada garanayno faa'iidadiisa sidoo kale waxay kor u qaadaa caafimaadka wadnaha iyo xididada dhiigga oo ay wanaajiyaan qulqulka dhiigga maskaxda waxaa kaloo ka helaysaa vitamin E kaas oo aan garanayno in uu saacido dhammaan maskaxdoo dhan 6 cagaarka oo dhan sida koostada kaylka iyo wixii cagaar ah oo aad ka helaysa wadanka iyagana waxay qani ku yihiin vitamin C K iyo beta carotene vitamin K isna wuxuu xoojiyaa xasuusta wuxuuna caawiyaa oo ka hortaga damage-yada soo gaaraya maskaxda ilaali caafimaadka maskaxdaada adigoo ku daraya cuntooyinkan aan soo sheegnay diet-kaaga ama cuntada aad cunaysid iskana ilaalinaysid cuntooyinka dib u geysanaya maskaxdaada haddii aad wax ka faa'iiday fadlan la wadaag asxaabtaada waxaa idinka tagaya dhammaantiin fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh